السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جانالك مركلة سودة وهذا أدي هذا وما سنتين مقالك محربة إن ندي كل وذاقه وزارة أمنية جودها والشيكتي إن تضبطك صوص عضاء بالله صوص قبشة أي مسافرينها ضدك أول شيء ودمده هيتي إيه سوريا كواسي ومحكمة سره dhammaadkii bishii June ay astri madaxweynuhu waa uu ka kansali karaa waraaqaha TBS-ta oo ay haystaan arintaasi waan idin la wadaagaya maxay yihiin labada senator ee Republicaanka oo diidan ansixinta ninka Trump uu soo magacaabay wasiirka cadaaladda ee Mareykanka maxay yihiin sababaha labadaasi senator ay ku diidan yihiin in ay ansixiyaan oo ay wasiirka dhigaan Todd Blanche oo qareenka Trump ahaan jiray ka hor intii uusan Trump madaxweyne uusan noqon arimahaasina waan idin la wadaagaya aan ognahay maxkamadda sare sagaalka garsoore markii ay soo gabagabeynayeen kalfadhigoodii maxkamadda sare dhamaadkii bishii June ee la soo dhaafay sharciyadii ugu dambeeyay ee muranku ka taagnaa oo ay soo saareen waxa kamid ahaa TBS-ta madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu ka kansalo dadka haysta TBS-ta mise awood u malahan waxa ay maxkamadda sare ay sheegeen in TBS-ta madaxweynuhu awood u leeyahay inuu ka kansalo dadka haysto waxana arintaasi lagu bilaabay wadamada Haiti iyo Syria iyadoo ilaa iyo 12 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto dadka ka yimid la siiya waraaqahan TBS-ta TBS-tu waa Temporary Protection Status waa sharci Congress-ku 1990 ay meel mariyeen waxana la siiyaa dadka ka imaanaya wadamada masiibooyinka dabiiciga ah ay ka dhaceen sida fatahaado amaba dhul gariir amaba dagaalo ay ka jiraan waxana loo ogolaadaa inay Mareykanka joogi karaan ka shaqaysan karaan isla markaana waraaqahaasi waxay ka hor istaagayaan dadkaasi in wadankii ay ka yimaadeen aan lagu celin karin inta waraaqdaasi TBS ay haystaan laakiin wasiirka amniga gudaha Mark Wayne Mullen oo bartiisa TikTok muuqaalkan aan idin tusi doono soo geliya waxa uu leeyahay ereyga ugu horeeya ee temporary macnaheedu waxay tahay kumeel gaar ma ahan permanent wax joogta ma ahan sidaas darteed maxkamadda sare waan ognahay in madaxweynaha ay awood u siisay in dadka uu kala laaban karo waraaqahaasi temporary protection status-ka oo TBS loo soo gaabiyo sidaas darteed waxa uu yiri waxaan kula talinayaa dadka sharci la'aanta ah in website-ka wasaaradda arrimaha gudaha ay galaan dhs.gov/cbb home isla markaana ay iska diiwaangeliyaan oo iskood ay isku masaafuriyaan waxa uu yiri qofku haddii uu go'aansado inuu iskii isugu masaafuriyo wadankii oo asal ahaan ka yimid ama wadamada Mareykanku uu heshiiska kula jiro in loo celiyo dadka aan wadankooda u dhalan oo ah wadamada saddexaad waxa uu yiri $2600 ayaan siinaynaa tikidkana waan ka bixinaynaa laakiin waxa uu yiri haddii aad diido waan ku soo heleynaa waan ku xireynaa kadibna waan ku masaafurinaynaa suuragalna ma noqonayso Mareykanka mustaqbalka inaad dib ugu soo laabato laakiin haddii aad ismasaafuriso waa lagu ogolaanayaa in Mareykanka mustaqbalka qaab sharci ah aad dib ugu soo laabato bal wax yar ila daawada muuqaalkan uu TikTok soo geliyay wasiirka amniga gudaha Mark Wayne Mullen. There's a lot of talk about this court ruling for TPS. What is TPS? Temporary protective status. Let me emphasize on that first word, temporary. Now, there's a lot of talk going on because why the Supreme Court just recently ruled that President Trump can end TPS for a certain group of individuals. Temporary meant temporary. There's two options now if you fall underneath the category that the court just ruled on. You can self-deport. We will buy you an airline ticket and give you $2,600 to go back to either the country you go to or a country you choose that will accept you. Or we'll come find you. And if you think you're going to just wait out the Trump administration, it's not going to work. We will find you and we will deport you. Do yourself a favor. Go on to DHS's website and say, I want to self-deport. And we will immediately start working on your case. Provide you with the money, provide you with airline ticket, and send you on your way. marka dadka wadanka Haiti ka yimid oo waraaqaha TBS-ta haysta isla markaana 27 bishan ay ka dhacday oo isniintii la soo dhaafay ku ekeed waxay dhanyihiin 300,000 ilaa 350,000 dadka Syriankana waa 6,000 marka sida muuqata hada wadanka Haiti wadankaasi waxaan ognahay masiibooyin dabiici dhul gariir inuu ka dhacay sanadkii 2010 madaxweynahoodii la dilay sanadkii 2021 inta badan wadankaasi gangis ay maamulaan isla markaana dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwa siyaasadeedba ay ka jiraan sidaas darteed waxaa muuqata marka wadankaasi in dadka in lagu celiyo ay halis tahay hada qareeno fara badan ayaa arintaasi ka doodaya sidoo kale Syria inkastoo aan ognahay hada dawlad inay ka dhalatay markii xukunkii Bashar al-Assad meesha laga tuuray laakiin haddana wali wadanka xaaladiisa inta badan ma degana marka sidaas darteed ayaa hada waxa ay leedahay wasaaradda amniga gudaha
waxaan bilaabaynaa toddobaadka soo socda inaan soo qabqabanno islamarkaana aan masaafurino dadka ka yimid labadaasi wadan ee Haiti iyo Syria maadaama maxkamadda sare ay tiri madaxweynuhu awood ayuu u leeyahay inuu TPS ama temporary protection statuska uu kala laabto. magaalada Springfield ee gobolka Ohio ayaana laga bilaabaya oo dad aad u fara badan oo wadanka Haiti ka yimid ay ku nool yihiin. waa magaaladii madaxweyne Trump uu yiri markii ololaha doorashada uu ku jiro Kamala Harris ay wada doodayeen September sanadkii 2024 dadka heshiyaanka ah ee ku nool Springfield Ohio eeyaha iyo bisadaha ayay cunayaan. arrintaasi oo arrin la yaab la noqotay. marka howlgalkaasi waxa ay sheegtay wasaaradda amniga gudaha in ciidamada ICE ay bilaabi doonaan maadaama dadkaasi hadda wadanka wax sharciya aysan ku joogin haddii aysan iskood isku masaafurin in la soo qabanayo la xirayo kadibna la masaafurinayo. arrintaasi haddii halkaasi aan kaga gudbo dhinaca kale waxaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay jirtay in muran weyn uu ka taagnaa ansixinta ninka Trump uu soo magacaabay wasiirka cadaaladda Todd Blanche oo kusimaha wasiirka cadaaladda ahaa markii Trump xilka uu ka qaaday Pam Bondi bishii afraad ee sanadkan ayaa Trump hadda waxa uu u magacaabay ninkaasi si rasmi ah inuu u noqdo wasiirka cadaaladda ama wasaaradda la yiraahdo DOJ. ninkan qareenka Trump qaaska ayuu ahaan jiray xilligii ololaha doorashada uu socday oo New York ay dacwadaha ay uga furnaayeen xitaa markii laba toddobaad ka hor su'aalo ay weydiinayeen Congress-ka mar ayaa afkiisa waxa ka soo baxsatay waxaan ahay qareenka qaaska ee madaxweynaha kadibna uu ka laabtay wuxuu yiri maya waxaan ahay kusimaha wasaaradda cadaaladda. marka wali waxa uu isku maleeyaa xitaa inuu yahay qareenka qaaska ee madaxweyne Trump. marka laba senator oo Republican ah oo hadda November aan doorasho galaynin labaduba Trump intay ka soo horjeesteen midna uu sheegay inuusan tartami doonin oo iscasilay midna Trump xubin ka soo horjeeday intuu taageeray Trump xubintii uu taageeray ay kuuleysatay ayaa labaduba waxa ay diidan yihiin inay ansaxiyaan wasiirka cadaaladda oo ay ogolaasho u siiyaan in uu wasiirka cadaaladda uu noqdo. haddaba labadan senator maxay kala yihiin? Tom Tillis waa senator laga soo doorto North Carolina. Trump waxay iskula dhaceen sharcigii The Big Beautiful Bill iyo arrintii Epstein Files kadibna Trump waxa uu sheegay inuusan taageeri doonin doorashada soo socota. Tom Tillis marka uu iscasilay hadda Congress-kan markuu dhamaado November ma isa soo sharaxi doono. marka Tom Tillis waxyaabaha uu ku haysto waxaa kamid ah ninkan Todd Blanche oo wasiirka cadaaladda oo Trump u soo sharaxay waxa uu yiri dhibanayaashii dadkii uu dhibaateeyay Epstein waa inaad la kulantaa. laba toddobaad ka hor xitaa guddiga cadaaladda ee sanadku markii su'aalo ay weydiinayeen intooda badan goobta howlka su'aalaha lagu weydiinayay ayay fadhiyeen. Tom Tillis marka waxa uu yiri hal shuruud ayaa ku xiran inaan ku codeeyo waxa ay tahay inaad la kulanto dhibanayaashii uu Jeffrey Epstein uu dhibaateeyay. marka waa uu la kulmay laakiin dhibanayaashii waraaq furan ayay u soo direen labadan senator oo ay leeyihiin fadlan ha u ogolaanina inuu wasiirka cadaaladda noqdo maxaa yeelay wax shalayta ah ma aysan ka muuqan mana uusan noo cadayn markii uu nala kulmay dadkiina dhibaateeyay in baaritaan lagu sameynayo ama la maxkamadeynayo. marka Tom Tillis bal ila daawada markii uu dhahayay codkaygu waxa uu ku xiran yahay in uu la kulmo dhibanayaashii Jeffrey Epstein ninkan Trump uu soo sharaxay wasiirka cadaaladda ee Todd Blanche. And Mr. Blanche, I have a positive predisposition to, just so that everybody knows. I have not made a final decision. But Mr. Blanche said very quickly yesterday that he would meet with the victims, the Epstein victims. Well, right now, the markup, if you all don't know procedure here, after this hearing is done today, next week we'll hold it over. The earliest possible markup would be 2 weeks from now. And because it seemed to me that Mr. Blanche was willing to say that he would meet with them and counsel. I understand the restriction. The counsel has to be present. I expect that meeting to occur before I'm willing to vote out of this committee. And I'm trying to get to yes. But this is a very important part of getting to yes. dhinaca kale John Cornyn isaguna waa senator ilaa iyo sanadkii 2002 sanadkii ku soo jiray. Trump arrinta dagaalka Iran ayay isku dhaceen. Trump marka waxa uu taageeray Ken Paxton oo xeraalyaha guud ee gobolka Texas ayuu senatorkan laga soo doortaa. marka doorashooyinka Israa'iilka hadda bishii June dhacay ayaa looga adkaaday John Cornyn oo Ken Paxton oo Trump uu taageeray ayaa soo baxay. marka isaguna November ma tartamayo. laakiin John Cornyn arrinta uu ku haysto Todd Blanche oo Trump wasiirka cadaaladda u soo sharaxay waxa ay tahay Trump waxaan ogeyn waa kii IRS dacway hay'adda canshuuraha gudaha Mareykanka qaabilsan oo yiri canshuurahigi waa tii la ogolaaday in la soo bandhigo sidaas darteed 10 bilyan ayuu ku dacweeyay. markii dambe haddana wuxuu yiri heshiis ayaan la gaaray aniga iyo qoyskayga IRS mustaqbalka wax baaritaanaha kuma sameyn karaan canshuuraheena. isla markaana wuxuu yiri waxaan doonayaa sanduuq la yiraahdo anti weaponization fund in ay sameeyaan taasi oo magdhow lagu siinayo
Biden intii uu madaxweynaha ahaa dadkii uu maxkamadeeyey amaba la xiray ama baaritaan lagu sameeyey arrintaasi oo Republicaanka iyo Dimuqraadiyiintuba ay si weyn uga caroodeen. Marka John Cornyn sabab waxa uu leeyahay marka maadaama Todd Blanche uu hore u yiri waan joojinay arrintaasi lacagahaasi 1.7 bilyan ka badan wuxuu yiri waxaan doonaynaa qoraal inuu na tuso war dowla waraaqo ku yaala Soomaaliya waxaan doonaynaa qoraal cad inuu na tuso in arrintaasi aysan mar dambe dib u soo laabanaynin. Xitaa maanta waxa la filayay Todd Blanche iyo John Cornyn inay wada kulmaan maxaa yeelay guddiga ka hor inta aan sanadka wasiirka cadaaladda uusan ansixin waxa jira guddiga cadaaladda ayaa u codeeya. Haddii marka aysan guddiga cadaaladda hal xubin oo Republican uu diido sanadka lama horgeyn karo. Marka kulankii maanta ay wada yeelan lahayn John Cornyn iyo Todd Blanche waa uu kansalay John Cornyn maxaa yeelay waxa uu yiri wali ma arintii ma uusan itusinin. Ninka madaxda ka ah guddiga cadaaladda oo Republican oo la yiraahdo Jack Grassley oo Iowa laga soo doortana 4 galabnimo ee maanta ayuu u qabtay in John Cornyn uu jawaab cad soo siiyo. marka Republicaanku waxaan ognahay aqlabiyadda aqalka sanadka 53 xubnood ayay ku hayaan. Lindsey Graham waa uu dhintay, Mitch McConnell isbitaal ayuu ku jiraa 2 bilood ku dhawaad. sidaas darteed 51 waa in lagu ansixiyaa wasiirka marka madaxweynuhu uu soo magacaabo. marka haddii labana ay diidan yihiin mid uu dhintay midna uu isbitaal ku jiro macnaheedu waxay tahay 49 ayaa u soo haraysa oo xitaa 50kii madaxweyne ku xigeenka xitaa cod ayuu leeyahay. haddii uu ku soo daro codkiisa 50 ayay noqonayaan 51 ma haystaan. Dimuqraadiyiintana waxaan ognahay in dhammaantood ay maya ugu codeynayaan 47 xubnood oo hadda sanadka ay ku leeyihiin xisbiga dimuqraadiga. marka arrintaasi muran weyn ayaa ka taagan. marka codkii bari loo qaadi lahaa in guddiga cadaaladdu ay u codeeyaan Todd Blanche waxa la filayaa in dib loo dhigo maxaa yeelay haddii guddigaasi ay u codeyn waayaan sanadka looma gudbin karo. marka ansixinta wasiirka cadaaladda ninka Trump uu soo magacaabay caqabado waaweyn ayaa hortaagan oo labadaasi senator oo Republicaanka ay hormuud ay ka yihiin mid walibana uu dalbanayo shuruudo gooni ah uu wato. marka waan arki doonaa arrintaasina halka ay ku dhamaato. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo.